الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن أولا الله سبحانه وتعالى يا مهدف كله عاوي بعد صلاة المغرب سيدا وناكسن أو أفقرك أو كجرة ونوغشو قبل بشركي أن يساكي كسعودي بمدد الأمرير لغونا حشيفين أي الله الذي كنت قال لمي إنك أوضح عيسى مركا يافقوية أيضا دقال كاسو قبل وذي مركي هراء موريانتا أما إذا مدى صليبيين ككوا إماشا كالسدينتا كدلنا كبا هاي دادكي رأيت كاها لبدا قبيلة مركز يونسب الشيغانيين أين دعضي دادبدا ودرمجيدا إن وحوهي اللدلو باورت لقلدقو دير اللقو قرية اللقو ونهانتي أرنتاس وانودو قادن كري ويني waxayna nagu kaliftay inaan si degdeg ah aan hawshaas aan u dhaxgalno waxaan isku yeernay labada beelood ee meeshaasi ku dagaalamay arintu ay qusayso dibkana uu taaganayay Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu noo fududeeyay dadkii waxay wax ka go'ayeen aktarkooda inaan helno qaarna hadda waaba kuwii hawsha sameeyay siyaasiyiin ahaa dana kalena watay ummadana inay isku baabiyaan rabay iyo ciidamadii shisheeye oo run ahaantii ayaguna kormeer iyo mushrifiin iyo waxa weeyaa run ahaantii isku sii horinayay korkana ka daawanayay dibkana awalkiisaba ayagu ay rideen ayna doonayaan qaacidadii ahayd farriq tashud kala qaybi maamul waa arrintaas run ahaantii ilaahay subxaanahu watacaala si fudud ayuu noogu soo gabagabeeyey maxaa ka soo baxa kulaasi kulanka waxaa ka soo baxay ilaa iyo dhowr qodobka koobaad in dagaalka la joojiyo labada dhinacba maadaama dad masaakiina ay galaafsatay dagaalkaas marka horena ay ka bilaabatay ciidamada shisheeye dad ay meesha ka haysadeen murtadiina ama moryana dana kalena lahaa gaaladuna ay isku baabi'inaysay ayuu dagaalka ka bilowday kadibna wuxuu ku faafay dadka masaakiinta ee birmigeedada waxaana la gubay guriyo waxaa la gubay beero dad masaakiina ayaa meelaha qaarkood lagu dilay ayagoo loo dilay bismi qabiil awalan waxaa la isla gaaray in xabadda la joojiyo labada dhinacba qodobka labaadna wuxuu ahaa in ciidamada la kala qaado qodobka saddexaadna wuxuu ahaa in aan wadooyinkaas u dhaxeeya marka ay afgooye dadka shacabka meesha maraya inaan baabuurta lagala degin inaan dhib loo geysan inaan guryo la gubin beero la gubin aan wax la kala dhicin dibkana halka intaas uu ka ekaado intaas ayaa hadda ugu waaweynaa shirkaana waxa weeye waa shirkii ugu horeeyay ee hadda xabad joojinta shir kale ayaa ku xigi doona oo kan ka weyn oo waxa weeyaan dhibka meesha uu ka bilowday cidda bilowday iyo dhibka cidda geysatay iyo waxa weeyaan waxa la kala qabo iyo waxa la kala sheeganayo lagu falanqeyn doono kanna hadda wuxuu noqday shir waxa weeye degdeg ah oo dhib joojina waayahay hawshan aad sheegtay qodobadan in ciidankii la kala qaado iyo in xabadii la joojiyo yaa ka howlgelay waxaa meesha lagu magacaabay odayaashii labada qabiil iyo odayaashii Soomaaliyeed ee meesha iskugu yimid tan iyo saakay halkan ku shirayay ayaa waxay magacaabeen guddi 12 qof ka kooban oo meelihii dagaalku ka dhacay tagaya dadkii waxa weeyaan kala durkinaya xabadana joojinaya ayaguna la mubaasharoonaya shaqadana waxa weeye galaya baribeena insha Allah taala iyo saadambe ay dhaqaajinayaan hawshan ay qabsan doonaan insha Allah dadka soo qaxay deegaanada dagaalku uu ka dhacay soo gaareen degmooyinkan maamulka adigu aad mas'uul ka tahay uu ka dhacay jazakallahu khairan waxyaabaha nagu kalifay inaan shirkan aan qabanno dadkan aan ku heshiisino ayay kamid tahay hadda buulo iyo qoryoolay iyo konturwaar iyo baraawaba iyo degmooyinka kale sida Tooro Sablaad waxa laga dareemi karaa dad badan oo ka soo qaxay marka Shalaambood Elwareegow lambar 50 ilaa Afgooy ilaa soona waxa weeyaan Janaale iyo Busley aagaas oo dhan dadkii waa lagu kala qaxay dadkii labada qaybood ama labada beelood u kala dhasheen waa kala qaxeen Soomaalidii kale ku dhex jirtana way qaxday beeraleydii oo dhan waa soo qaxeen wilaayaduna maalmahan oo dhan waxay ku howlaneyd soo dhaweynta dadkii soo qaxay dagaaladii baa saameeyay qaarkood hantidooda ay la baqeen in laga dhaco meeshii oo dhan Mooryaan iyo Balaayo oo dhan baa ku faaftay iyo ciidamo qabiil marka saas darteed hantidooda ay la soo carareen qaar naftooda la soo carareen qaar hantidooda la soo carareen umaduna waxay u soo macin biday dhanka wilaayada oo aysan ka jirin wax qabyaalad iyo dulmi iyo dhib uusan ka jirin amniga sharciga Ilaahay iyo hooska
shareecada ay harsanayaan hadda maanta. meesha waxaa ku diriray waa ciidamadii dowladda federaalka ah qabaa'iladii ay ka dhasheen ayayna saamaysay colaad marka ciidamada shisheeye ayaana colaadan aad moodaa inay kor ka waardiyenayaan oo markii hore ciidamada dowladda federaalka soo raaco goobta leeyihin guddi marka adinka xarakada shabaab mujaahidiin xaggeeda odayaal ay magacooday ah sideeba inta halkaa tago uu kala dab qaadi kara labada dhinac run ahaantii waa su-aal weyn oo la isweydiin karo saad ogsoontihiin ba wilaayadu waxa ay maamulkeeda uu gaarsiisan yahay dhammaan meelaha cadowga uu joogo cadowgana meelo yaryar ayuu ku kooban yahay inta kalena wilaayada ayaa dhex marta oo waa ay kala socotaa shaqadina way kala socotaa ciidamada jabhadaha mara maamulada ka shaqeeya tuulooyinka iyo baadiyaha iyo duurkaba wilaayada ayaa ka tala soo joogta run ahaantii waxaan isleenahay wax badan baad ka qaban kartaan ilaahi subxaana watacaala hadduu noo fududeeyo waana rajaynaynaa iskumana fiirsanayno waxa dhibka iyo culayska iyo waxa weeyaan rafaadka meesha ka jira wax aan sii fiirsan karna ma aha waxa weeyaan wax walba oo karaankeenna iyo awoodeenna ayaan iskugu geynaynaa in meeshaas dhib badan uusan ka dhicin intii horena dhib uu ku ekaado ilaahayna subxaana watacaalana waa kaashanaynaa ciidamada saliibiyiintana insha almawla waxaan rajaynaynaa inay ku ingoobi doonaan waxa way danahooda ay ka leeyihiin ummadda muslimiinta ee Soomaaliyeed inay isku baabiyaan dadka labada beelood oo walaalaha ka dhashay ee colaadu ay saamaysay ku dhageysanaya lagana yaabo in badankooda is weydiinayaan su'aalo colaadan ciidamada dowladda federaalka ay bilaabeen ka dhalatay maxay tafriinta u gudbeen awalan waxaan u gudbinayaa ummadda muslimiinta ee Soomaaliyeed dhibaatada ay ku saamaysay dagaaladaas hadday noqon lahaayeen kuwii isdilay oo qabaa'ilada qaarkood u kala nasab sheeganayay hadday yihiin dadkii muslimiinta ay Soomaaliya ku dhex jiray oo ayagana waxa weeye ku dhex baaba'ay hantidoodana waxa weeye kaga cararay ama qaarkood waxa weeyaan meelo kale hadda maantay qaxooti ku ah awalan ilaah Allah subxaanahu watacaala kitaabkiisa ayaa lagu kala badbaadaya kitaabka ilaahay baana xal ah waxaan farriintayda halkaan aan uga jeedinayaa inay Allah subxaanahu watacaala kitaabkiisa ay u laabtaan wayna og yihiin wayna Soomaalidu way ogaadeen muslimiintuna way ogaadeen hadda dadka maanta meesha iskugu yimid dhammaantood waxay ka barakacayeen in intay wilaayadu joogtay aagagaas iyo dhanka Janaale iyo Marka iyo Shalaambood ilaa iyo waxa weeye la fole inaysan wax dhibaato ka dhicin qabaa'il isku dishay aysan jirin inta wilaayada hadda ay gacanta ku haysana qabaa'ilada hadda dibka isku geystay ay si nabada ay u wada degan yihiin si nabada u wada shaqaystaan walaalo ay yihiin run ahaantii arrintaas waxay ku timid tadbiiqinta sharciga ilaahay iyo ku dhaqanka sharciga ilaahay al-shabaabna ma keenin al-qaacidana ma keenin waxaa lagu helay waxa weeye kitaabka ilaahay ku dhaqankiisa cid walba oo ilaahay kitaabkiisa ku dhaqantana waxa weeye naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda ayaa badbaadaya marka awalan waxaan rabaa insha allahu tacaala inay ogaadaan kitaabka ilaahay ayaa xal inoo ah maantay annagu waan soo dhadhaminay dimuqraadiyad waa soo dhadhaminay shuuciyana waa soo dhadhaminay qabyaaladna waa soo dhadhaminay iyo qurankeeda 20 sano waxa weeye la isgeligelay in walbana waa ogaaday dhibka iyo waxa laga dhaxlay qabiilka adkaaday waa la waayay marka maantay inaan u noqono ciribteena waa laga fiican yahay Soomaalidu way ogsoon tahay wayna taqaanaa waxa ay soo martay oo burbur iyo rafaada ninkii shaacirka wuxuu yiri wama al-harbu illa ma alimtum wa duftum wama huwa an hadha al-hadith al-murajjal dagaal waad ka taqaaneen waad ka dhadhamiseen wax laga sheekeynayana ma waxa weeyaan wiilkuma dhasho wiil baa ku dhintay waana ogtihiin nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu yiri iska daaya qabiilka iyo kufraankiisa waxa weeye waa wax aad iyo aad u xun taasoo kale nabiga waxa uu noo sheegay xajkii ugu dambeeyay xajjatul wadaa umada uu kula dardaarmay ala la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dakum fi qaba ba'd sadaashay ha u laabanina gaalnimo qaarka kale qoortiisa uu waxa weeye uu gooyo marka muslimiinta oo isdila oo isdhameeya gaalnimo ayuu nabiga ku tilmaamay sida nabiga uu noo sheegayna waxa uu xadiis saxiix ah ku leeyahay al-qatil wal maqtul fi an-nar kii wax dilay kii la dilay naarta ay galayaan marka dagaal waa naqanaa waa kaan soo marnay marka in dibna loo cesho maantay cadowga ilaahay uu ka faa'iideysto ummadda muslimiinta ee Soomaaliyeed maantay waa ujeedaan kismaayo waxa ka socda dadku waa la isku baabiyay qabiil
maanta waxaa ka socda shabeellada hoose hiiraan waxaa ka socda gado waxaa ka socda muqdisho sidoo kale galgaduud meel maanta dahan ma jirto waxa weeye Puntland iyo Soomaalina waa maqlayseen waxa weeyaan sida qabaa'iladii la isku baabi'inayo arrintaana waa arrin uu ka dambeeyo gaalada waxaan fahmi kartaan waliba Soomaalida hadda ku dhaqan gobolka shabeellada hoose waxay fahmi karaan ay maanta haystaan weeyaan lambar 50 la isku dagaalayo waxa weeye dhinac waxa ka jooga ciidamadii Soomaaliyiinta xero weyn bay ku leeyihiin waxay ku leeyihiin meeshaas qaacido weyn oo askariya maca dalika labada dhinac rasaas ay isku dhigaan cid walba soo cararta oo u timaada rasaasta ay siiyaan shalan bood waa fadhiyaan bilaal meesha la yiraahdo ama buufow waa joogan jannaale waa joogan inta dagaalku waa ka socdaa maca dalika waa isku fiirsanayaan walaal ma filna dadku tusaale weyn baa ugu filan maantayna hadda boqolaalkii qof ay shirka ka soo qayb galay wax ay ogaadeen ay noo sheegeen xaqiiqda ay dhadhamiyeen wayna soo arkeen marka insha Allah taala dadku hadda waa ka dhab inay waxa weeye sharciga Ilaahay inuu xal yahay ayuna ogaadeen taas ayina waxa weeyaan anaga inoogu yimaadeen taas ayaana insha Allah taala ugu baaqnay inay kitaabka Ilaahay ku dhaqmaan dilkana iska dhaafaan laga dhex faa'iideysan gaalada aysan ka dhex faa'iideysan nabad bay ilaalinayaan baa la yiri ciidamada shisheeye waa nabad ilaalin shaatigaas baa loo soo gashay 7 sano ay dalka joogaan maantana rasaas bay isugu dhiibeen maleeshiyada ay garab ku soo siiyay inay deegaanadan hadda ay joogaan ay qabsadaan marka sawirka taasleeda macnaha waa cagsigeeda Soomaaliya waxa la sheegay rumaantii qof walba aqliga leh waa u dareemi karaa nabad ilaalin nabadda ilaalinayaan waa maxay markay imaanayaan degmada marka ama muqdisho ama meelaha kale oo hadda sharciga Ilaahay looga dhaqmo jiray sida Kismaayo baydhabo annagu ka tusaale ahaan la foole iyo meesha la yiraahdo afgooye iyo maanta marka sida ay ahaan jirtay maanta ma aha nabad baa ka jirtay dhibaato kama jirin qabyaalad kama jirin dulmi kama jirin waxa weeyaan khayr iyo wanaag iyo kitaabka Ilaahay la isku dhaqay marka waxa loo soo diray diinta Ilaahay in la dagaalamaan nabadda ay burburiyaan hadda meelaha ay joogaan lagu dagaalamayo waxa uu dhufeysada ay ka galay xabada ay ka gambadaan cidii u tagtana rasaas bay siiyaan ayagana sii huriya waxayna ku dhaqmaan qaacidada ah farriq tasud waxa kala qaybi oo xukun kun ahaantii arrintaasna waa inay dhigaysaa dad muslimiin Soomaaliyeed baan nahay walaalaheena muslimiinta ee Soomaaliyeed dibka gaarayaan waan ka danqanaynaa umana dulqaadanayna insha Allah taala cid alaalay cidii waxa way heshiiska ka hortimaadana dhan baan insha Allah taala ka maraynaa waana ku sheegnay odayaasha inaana raali ka ahayn waxa meesha ka socda ciidamo murtadiin oo isdilaya cid waxa way dan kala malaha gaaladuna dan kama anaga dan kama leh laakiin hadda waxa aan u danqanay waa dadka shacabka waa dadka abriyada ee masaakiinta ee birmigeedada oo dagaalka u saameeyay waxa weeyaan arrintaas ayaa anaga danqisay annaguna waxaan u taaganahay dadka shacabka ee muslimiinta ee Soomaaliyeed badbaadada ayaan u taaganahay dibkoodana waa dibkeena hooyooyinkeena aabayaasheen weeye waxa hadda dibka isku geysanaya in la kala badbaadiyo oo dabarada ama muxuu ahaa waxyaabaha cadawga soo maleegana in laga badbaadiyo dhagaraha in laga badbaadiyo ayaan insha Allah taala aan ku tala galnay meel fiican bayna noo maraysaa waana lagu heshiiyay oo shuna insha Allah taala in marka way dhamaatay ayaan rajaynaynaa insha Allah